بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحان إن شاء الله تعالى كسعون دونا درسي لبات وان كقادن دونا سورة الحجرات وإلهي سبحانه وتعالى سورة كمده كتاب كيساء وان قيبتي هو رسول قادني وحين نسوق قادني آيات اللي حاد وان ما انتكب الله بينه إلهي آيات وحو كله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلهي وحو inoogu yeedhahayaa magacii iimaanka ee quruxda badnaa wuxuuna leeyahay yaa ayuhaladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyayow in jaa'akum hadduu idinla yimaado faasiqun mid faasiqa binaba-in war hadduu idinla yimaado fatabayanuu cadaysta an tusiibuu lianlaa tusiibuu inaydaan asiibin qowman qoom inaydaan ku asiibin bijahaalatin xaalaad maaragtay ku sugan tihiin ogaansho la-aan ama jahaalo aad kaga sugan tihiin oo fatusbixuu marka aad ahaataan naadimiina kuwa shallaytaysan calaa maa facaltum wixii aad samayseen kuwa ka shallaytaysanaydaan aad maxayda ahaataan marka ilaahay subxaanahu watacaala aayadan wuxuu inoogu cadaynayaa qaacido la dhaho hubsiinyo iyo inaan wax hubsanno oo inaan degdegin khaasatan marka qofka faasiqa oo ilaahay faasiqba ku tilmaamay qofka warka wadaayi uu inoo keeno uu inoo keeno oo uu cid kale inooga keeno waxay kusoo degtay aayadan nin la yiraahdo Waliid bin Uqba ayuu nabigu wuxuu u diray qoys la yiraahdo reer bani mustaliq ayuu u diray nabigu calayhi salaatu wasalaam inay ahaayeen baan jeclahay magacooda oo uu ku yiri zakaat ka soo ururay xoolihii zakada ninkan iyo qoyskooda ninkan qabiilkiisa iyo reerkaasna waxba ka dhaxdhaxeeyay marka nimankii ku soo baxeen qabiilkii uu zakada nabigu ooga diray ayuu soo cararay asagoo isdhahaya armay ku dilaan nabigana calayhi salaatu wasalaam waraan jirin buu u sheegay oo wuxuu ku yiri nimankii waa soo diidan xoolihii ilaa uu nabigu cadhooday calayhi salaatu wasalaam oo xitaa naftiisu markuu fakartay inuu dagaal ama uu ku duulo nimanka iyaga ah laakiin alxamdulilah nasiib wanaag nimankii baa yimid oo yiri yaa rasuulallah ninkaad noo soo dirtay maaragtay uu naga soo cararay ma garanayna sababta sidaasuu maaragtay uu nabiga calayhi salaatu wasalaam nin kale ugu diray oo zakadii looga soo ururiyay marka aayadan waxay inoo sheegaysaa war haddii laynoo keeno oo been ah oo weliba qof faasiq ah oo maxay ahayd faasiqa waxaa la dhahaa qofka aan cadaaladda aqoonin qof wuxuu rababa iska sheega qof hawadiisa ka hadla qof beenta ku dhiirada oo saas oo kale ah hadduu war inoo keeno warkii inaan hubsanno lianna qof caadil ah oo wanaagsan oo akhlaaq leh oo dadnimo leh oo iimaan leh war maba soo qaadayo iyo waxaan jirinna ma samaynayo dadna iskuma dirayo bal hadduu xitaa ceebo iyo warar maqlo wuu asturayaa wuu qarinayaa intuu qaado cid kale uma geynayo laakiin faasiqu waxaan jirinna wuu sameeyaa wuxuu maqlana wuu sii qaybiyaa oo shaqadiisaba waa namaam dadku isku diraa beeluhu isku diraa dadku isku diraa muxuu ahay dadka isqabu isku diraa walaaluhu isku diraa asxaabtu isku diraa maxay ahayd qaraabadiibu isku diraa dariskiibu isku diraa shaqadaas waa qabtaaba waa shaqadiisaba qofka faasiqa ah ee khabiidka ah laakiin qofka wanaagsan iska daa wuxuu sameeyay wuxuu xumaantuu maqlay sidii Mucaad bin Jabal oo kale radiyallahu ta'ala anhu ardaa qof markuu maqla asagoo wax laga sheegayo buu wuxuu dhahaa bi'sa ma qult waxa sheegtay baa baas leh wallahi qofka khayrun baan ku ognahay halkaas uu ku difaaca halkaana uu kaga tagaa marka qofkan faasiqa ah qof war wada hadaad aragto waa faasiq marka qofkaas faasiqa ah inaad wixii sii qaado oo fatusbi maxay ahayd an tusiibu qawman bijahala oo wixii adigoon hubsanin ah hadana dadkii iska maagtid ood kula dul dhacdid oo dagaal bilowdid oo hadhowna maaragtay shallaytootid waa arin ilaahay inooga digayo subxaanahu wa ta'ala sababta uu qofku u ilaashanayo oo maxay ahayd inuu wax hubsadaa ay u tahay bal uu maxay ahayd uu raadinayaba waxa weeyaan marka inaan warba lagu sheeginba nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis baa wuxuu ku leeyahay qofna axadna yuunan saxaabadayda war iga keenin waxaan rabaa inaan ka baxo saxaabadayda anigoo saliimu sadri ah laabtaydu ayadoo fayowdahay oo warar badan iyo xumaan badan iyo waxaan ka cadhooda la iiga sheegin saxaabadayda yaan rabaa inaan ka dhex baxo marka yaan war la iiga keenin marka qofka wanaagsan goolkiisu wuxuu yahay wax la dhaho salaamatu sadri
laabtaadu inay fayowdahay. laakiin markii walba war lagu keeno eed war kala dhageysatid ee hebel lagaaga sheego ee heblaayo lagaaga sheego ee xagga laga keeno qalbadaada waxaa galaysa cuqdad iyo xanuun iyo laabtaaduna ma noqonaysa laab fayow, qalbi fayowna ma haysanaysid. marka waxaasoo dhan inaan iska teedno oon dadka faasiqiinta ah warkooda la hubsado buu ilaahay ina farayaa subxaanahu watacaala. dadka isku dira oo warka beenta ah sameeya iyo waxaan jirin iyo wax jiraba isku dara inaa maxay ahayd ummadda aan iska ilaalino, lianna hadhow arrintani waxay inagu keenaysaa shalayto, waxay inagu keenaysaa murug, waxay inagu keenaysaa dhibaato fara badan markaan wixii hubsan weyno oon warkii qaadno. waxaa dhici karta dad iska wanaagsan oo iska qalbi fiican oo haddana qofkii faasiqa ahaa shalay warka u keenay haddana maaragtay uu berrina laga yaabo ama dhowr bilood ka bacdina haddana inuu war kale u keeno, warkii shalay uu u keenayna inay been iyo dhibaato badan iyo xanuun badan uu ka qaado. marka qofku waxaa la rabaa siday laabtiisu u fayoobaato, siduu caafimaad u helo, ilaan cudur ka xun ma jiro qofku inuu cuqdad la noolaado, inuu xiqdi la noolaado, inuu maaragtay warar iyo balaayo iyo waxyaalahaas uu ku dhex jiro oo maanta dhan qiila waqaalo oo kolba gees telefoon u diro oo kolba gees dad maaragtay uu kula dagaalo oo maanta gogol dhigto oo maanta dhan buuq iyo qaylo ku jiro. qofkaas caafimaad darro, dhiigkar, sonkor, cudurro iyo cadaab aan dadku u ogeyn buu ku jiraa. qofka maaragtay maanta dhan wararka iyo waxaan laysku qabsanaya iyo waa la yiri iyo wuu yirida ku dhex jira. marka saa waxyaalahaas looga badbaado dadkaas ilaahayna subxaana watacaala uu inoo sheegayba inay xitaa intaan aakhiraba la gaarin ay la kulmayaan. aakharana wuxuu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka dadka isku dira ee warka u kala qaado janno maba galaba. muxuu ahaaye qabrigana in lagu cadaabayo oo qabriga cadaabul qabriga ay la kulmayaan dadka warka dadka u kala qaada ee u kala socda warka dadka u kala geeya uu inoo sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka waa dhaqan aada u xun oo loo baahan yahay bulshada inay iska ilaaliso, rag iyo dumarba inay iska ilaaliyaan, xitaa ciyaalka in lagu tarbiyeeyo inaysan warkuu sheegin, inay dadka ceebahooda u asturaan, inaa khalalaadka iyo waxyaalaha dembiyada ay dadka ka maqlayaan inayna kuu keenin, in maxay ahayd dadka inaa loo ceeb asturo inay tahay. ayaga xataa dad baa inay war ka raadiyaan isku daya oo gurigiina maxaa ka jira, hooyadaa iyo aabahaase u dhaqmaan, maxaa haysataan, waxyaalaha weydiiya. inaa caruurta lagu tarbiyayo inayna xaafadoodana war ka qaadin, dadka kalena ayna war ka soo qaadin. min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacni, xadiidka in la baro inay maaragtay muxuu ahaaye qofka islaamnimadiisa wanaageeda inay ku jiro inuu ka tago waxaan shaqadiisa ahayn. marka yacni ma garanayo iyo xadiidka xitaa ha ugu jawaabo qofkii war weydiiya. marka inaan ilmaheena aynu ilaashano. yacni waxaan xusuustaa qiso uu nin doctoora ka sheekeynayay oo runtii aada u xanuun badnayd oo ninka ku saabsanayd war uu sheegay nin faasiq ah. qisadaas wuxuu leeyahay ninkaasi waagii telefoonada aysan jirin oo telefoonada gacantan ka wadaayo telefoonada guryaha yaala ay jiri jireen ayaa waxaa guriga joogay buri ilmo yar. ilmaha yarka marka telefoonku markuu soo dhaco wuu ku cararaa, wuu qabtaa, dadku la hadlaa. maalintii dambe telefoon buu qabtay, nin buu ka qabtay. ninkii wuxuu sameeyey ilmihii yaraa wuu wareystay, dabcan wadamada carabtay ahayd. wuxuu weydiiyey wax kasta oo gurigooda ah, maanta waxa fadhigoodu meeshuu yaallo, jiifkoodu meeshuu yaallo, hooyadii dharkay qabto, caruurtooda inta ay yihiin, aabahood goortu shaqada ka imaanayo, hooyadii maanta waxay karinayso, wax kasta wuu u sheegay, wuuna ka qortay, wuuna wareystay cunugii yaraa. markuu odayga shaqada waqtigu ka imaanaya buu kusoo celiyey. odaygaa telefoonka qabtay markaasuu wuxuu yiraahday gurigaaga waan kula maamushaa, reerkaaga waan kula maamulaa, maxaa cadayntuna waxay tahay xaaskaaga dharkaasay qabtaa, maanta cuntadaasaad ku cuntayseen, fadhigu dhinacaasuu kuu yaalaa, tv-gu halkaasuu kuu yaalaa, shaqada waqtigaasaad ka timaadaa waan ogahay, wax kastuu ku yiri. odaygii isagoo telefoonkii gacanta ku haya ayaa waxaa ku dhuftay dhiiggii, dhinaca stroke baa ku dhuftay. naxadintii iyo cadhadii iyo wuxuu ninkaasu daldalayay faasiqa ah oo maxay ahayd daalimka ah. odaygii marka waa lala cararay, dhakhtarkaa la geeyey buu leeyahay. dhakhtarkii markii la geeyey ayuu wuxuu arkay muxuu ahaye gabadhii ooyeysa, maamadii xaaskii ooyeysa u tagtay oo odayga ka walbahaarsan. markaasuu gacanta saa ku yiri iga fogow warqad iyo buu dalbaday. markii adiga hadalkiisa xataa lama fahmaynin, dhinac buu ku dhuftay.
warqadii qalinkii baa la soo qaaday markaasaa wuxuu ku qoray waad iga furan tahay gabadhii ka guurtay odaygii muxuu ahaaye ciyaalkii way isku soo hareen dhakhtarkii asagoo xanuunsan baa laga soo saaray maalin dambe oo gabadhiina ay yaaban tahay oo shoog ku dhacay oo meel looga yimid ayna garanaynin iyo waxa ninkan asiibay ayuu maxay ahayde waxaa soo wacay ninkii daalimka ahaa ee faasiqa ahaa baa soo wacay gurigii waxaa la dhahaa qofka jaaniga ah oo daalimka ah badanaa wuxuu ku wareegaa meeshuu jariimada iyo dembiga ku galay kama tago isla asagii baa soo wacay kii yaraabaa ka qabtay markaasuu yidhi aabba waa ninkii markaasuu yidhi ninkee iyo dhegta inuu saaro isku dayay markaasuu yidhi aabba waa ninkii maalintaad xanuunsanaysay kula hadlayay adigu cunugii yaraa markiiba odaygii dhageystay uu yidhi ninkan muxuu ahaayo wuxuu yidhi ninku wuu isoo wacay wax kastana reerka anaa u sheegay wuuna i waraystay haddana wuu kugu soo celiyey aduu kuu sheegay wixii aan u sheegay marka wuxuu leeyahay ninkaa dictoorka ihi ninkii markii waagii ku bariyey oo arrintii been inay tahay uu ogaaday wuxuu yidhi xaaskii dee see lagu soo celinay wuxuu yidhi waxaa isugu tegay culimo qaraabo dad oo mutakhasisiin ah cid kastaa la hadashay gabadhii qalbadeedii waa lasoo marin waaye ninka waxay tiraahday kalsoonidii iyo reernimadii iyo wanaaggii naga dhexeeyey nin telefoon ka soo hadlay ku baabi'iyey yacni ha idaayay tiri adigu wuxuu yidhahday la isugu tag oo la beri oo la soo celi laakiin maamadii wuxuu yidhi cudurro iyo depression iyo xanuun bay la nooshahay buu yidhi iyo qalbi jab marka ilaahay waa sida uu inoo sheegaya fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin yacni fatusbixuu waxaad rabbi ahaanaysaan buu leeyahay kuwa ka shallaytaysan waxaad samayseen ama aada noqonaysaan marka arrintaas waxaa loo baahan yahay dadka warka beenta ah iyo waxaan jirin iyo wax jiraba la wareegahaya inaan iska ilaalino fitantoodaas laguna qarxiyo ama ma ahane aan waxbaba laga soo qaadin oo lagu caburiyo lianna sida caadada ah markay qofkan war u keenaan warna way ka qaadaan marka ilaahay subxaana watacaala taasuu inooga digahayaa aayadan kale ilaahay wuxuu leeyahay waclamuu waxaad ogaataan anna fiikum dhexdiina inuu ahaaday rasuulallaahi rasuulka alle rasuulka ilaahay baa dhexdiina ah baa saxaabadii lagu leeyahay low yutiicukum hadduu idinku raaci lahaa oo idinku adeeci lahaa fii kathiirin wax badan dhexdii oo min al amri amarka ka midana lacanidtum waad maxayda dhibaatoon lahaydeen walaakina allaaha allaase xababa jeclaysiiyey ilaykum xaggiina al-iimaana iimaanka oo wasayanahu qurxiyey iimaankii fii quluubikum quluubtiina dhexdeedana ku qurxiyey oo wakaraha nacsiiyey ilaykum xaggiina alkufra gaalnimada iyo walfusuuqa faasiqnimada iyo walcisyaana macsiyadii iyo dunuubtii ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaana alraashiduuna ulaa'ika kuwaa laga soo sheekeeyey ilaahay iimaanka jeclaysiiye quluubtooda ku qurxiyey ee gaalnimada iyo faasiqnimada iyo dunuubtana alla nacsiiyey kuwaa hum iyaga ayaa alraashiduuna kuwa maxayda toosanoo hanuunsana alla muxuu saa u yeelay fadlan waa fadli dartii ama dheeraadsiin darteed oo minallaahi alle xaggiisa ka ahaatay iyo waa nicmo darteed oo alla idiin nimcaynayo ayuu sidaa idinku sameeyey wallaahu allana caliiman waa mid cilmi leh xakiiman oo falsan aayadahan waxay daba socdaan labadan aayadood aayadihii hore oo ahayd ka hadlaysa mabdicii inaa faasiqa aan la dhagaysanin ee warkiisa la hubsado iyo aayadiiba suuraddu ku bilaabatay ee ahayd ilaahay iyo rasuulkiisa inaan la hor soconina laga dambeeyo marka ilaahay wuxuu leeyahay maadaama uu rasuulkii ilaahay dhexdiina uu yahay waa inaad raacdaan waa inaad ka dambaysaan idinka ma aha inuu hadduuba idinku adeeci lahaa waxyaalo badan ood maaragtay aad idinku rabtaan waad dhibaatay idinku noqon lahayd iyo culays waxyaalaha uu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ku adeeci waaye oo iyagu rabeen waxaa kamid ah kuwa kamid a inay dhaheen maalin oo dhanna waan soomaynaa habeenkiina waan istaagaynaa xaasaskiiyo waan ka fogaanaynaa nabigu waa ka diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi amaa anaa fa asuumu aniga miyaa waan soomayaa nabi maxamed haddaan ahay wa afturu waana afuri wa aquumu wa anaam waanan istaagi waanan seexan marna yacni waan istaagayaa habeenkii marna waan seexan wa atasawaju nisaa haweenkana waan guursan faman raqiba can sunnatii falaysa minii qofkii aan sunnadayda raacin taas waa jidkaygii iyo dariiqadaydii qofkaan sunnadayda raacinna iga mid ma aha buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka diintu ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam baa wixii maslaxa inoo ah iyo wixii faa-iida inoogu jirta garanaysa ilaahay marka wuxuu leeyahay sidaa ku raaca
iimaankii iyo inaa laydin siiyo oo ahlu iimaan laydinka dhigo oo laydinku qurxiyo iyo inaa gaalnimadii laydin nacsiiyo iyo faasiqnimadiina wax aad iska hesheen ma ahane waa wax ilaahay fadli iyo nimco uu ilaahay idin siiyey subxaanahu watacaala. hanuunka isaga ah iyo wanaagga iyo qurxinta akbaru nicam, nicmooyinka waxa ugu weyn waxaa weeyaan waa nicmada iimaanka. ilaahay subxaanahu watacaala inuu iimaanna ku siiyo gaalnimona uu ku nacsiiyo iyo faasiqnimo iyo dunuub. marka taasuna waa nimco oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ina siiyey oy tahay inaan ku shukrino ilaahayna. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa way ka mid ahayd. maalintii uxud oo kale waa ku ducaystay aayadan maxay ahayd duca uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay allahuma xabib ilayna aliimaan wazayinhu fii quluubina wakarih ilayna alkufra walfusuuqa walcisyaan wajcalnaa min alraashidiin. marka waa duca iyadana aada u macaan oy tahay inaan maaragtay ku ducaysano oon ilaahay subxaanahu watacaala waa wax aada u qurux badan ilaahay inuu inoo ziyaadiyo fadliga iyo nimcadaas. waa inaan ilaahayna ka baryno ilaahayna ugu shukrino subxaanahu watacaala. dad badan baan ilaahay siinin iimaanka oo ilaahay annaga ina siiye. marka waa dheeraad siin iyo nimco uu ilaahay inoogu nimcaynayo subxaanahu watacaala. ilaahay asagaana addoommadiisa cilmi u leh oo yaqaana cidda mutaysatay iimaankan iyo cidda aan mutaysanin. waana alla waa xakiimoo wuu falsan yahay oo shay kastaba maaragtay mowdicii ku hagaagsanaa ee ku habboonaa asagaa dhigan rabbi subxaanahu watacaala. marka gaalnimadana kolley muqaabilkeedii iyo waxaa kasoo horjeeda waa iimaanka. ilaahay maxay iimaan buu ina siiyey, gaalnimona wuu noo nacay. fusuuqaasna asagana muqaabilkiisa waa istiqaamada waxa kasoo horjeeda oo qofku maaragtay marka uunan diintiisa uuna ku toosnayn waa marka uu maaragtay faasiqnimo iyo fisqi uu ku dhex jiro. cisyaankuna waxay dhahaan waa muqaabil alidcaan, qofku inuu maaragtay ogolaanshihii iyo hogaansankii rabbi ka leexdo oo uu dunuubta uu iska dhex galo, wuxuu ilaahay ka xarimay iyo wuxuu maaragtay u diiday uu qofku uu iska dhex galo. marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana watacaala inuu iimaanka ina jeclaysiiyo, quluubteena inoogu qurxiyo, gaalnimada iyo faasiqnimada iyo macsiyada iyo dunuubtana alleh ina nacsiiyo subxaanahu watacaala, nagana dhigo kuwa hanuunsan biidni illaahi tacaala. intaasaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan bilaabi doonaa aayadaha kale oo suuradda oo ugu soo horeyso marka ay muslimiintu isdagaalaan waxyaalaha xalka u ah ay kaga bixi karaan dhibaatada biidni illaahi tacaala. aad baan idin wada salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.